salaamullaahi calaykum saaxiibada ilays soo dhowaada mar kale. ma og tahay inaadan ogaan karin inta ay awooddaadu la eg tahay ilaa aad dhexda ka istaagto mowqif aanay kuu bannaanayn inaad noqoto mooyee qof awood badan. ooyintu micnaheedu maahan mar welibaba in aad tahay qof daciif ah. markaad dhalanaysay ooyintu waxay ahayd calaamad ama astaan u taagan nolosha iyo weliba awood, sidoo kalena sii raacso ku darso iyo mustaqbal soo socda. si kastaba ha u badnaadeen qaladyada aad gelayso ama kaa dhacaya, si kastaba u ahaw qof aan dheeraynaynin oo fadhiida. adigu waxaad ka horaysaa kuwa aan isku dayaynin inay bashay sameeyaan. xasuusaha qaraar ee xanuunka badan waxay meesha ka saaraan farxadda aad haysato. haddaba iska daa oo ka tur gadaashaada, iskana hilmaam inaad sabab u noqoto dhoolla-caddaynta qof ayaa waxaa laga yaabaa inay caalam beddesho. laga yaabee inaysan caalamkan aan ku dul noolnahay aysan ahayn, laakiin ugu yaraan caalamka uu qofkaasi ku nool yahay. hagaag, haddaba maxaad sugaysaa walaal? haddaba bilaaw, farxad ku beer wejiyada dadka. walaal daawade, si wacan ii dhegayso. guusha ha u dayn si ay u saamayso caqligaaga. fashilka ama guuldarradana ha u dayn inay qalbigaada gaarto. noqo qof adag oo qawi ah, awood leh. ma og tahay noloshu ma aqbasho dadka ducafada ah. aan kuu raaciyo walaal mid kale. ha ka welwelin dadka kale malahooda, yacni waxay adiga kuu malaynayaan. waxaase qiimo ma laha. shayga muhiimadda leh waxa weeyaan waxa adigu aad naftaada ka malaysanayso. maxaad isku malaynaysaa marka? ma qof daciifa? ma qof aan wax qabsan karin? ma qof aan awood lahayn? waxaasoo dhan waa been, waa ka kac iyo kaadigeel. adiga waxaad tahay qof awood badan, qof ay ku qarsoon yihiin awoodo aan caadi ahayn, qof u saaxiiba xirfado. da' kasta jir wax waad baran kartaa. si kasta u ekow, ku kalsoonow naftaada. allah wuxuu ku siiyey suurad qurux badan, wuxuuna dhexdaada dhigay awoodo aad u fara badan oo aan dhammaad lahayn. haddaba ka faa'iidayso. allah macag, allah ha kula jiro mar weliba. marka qofkuula dhaqmayo qaab xun, adigu sidaadii ahaaw oo ha isbeddelin. xaaladda qofka kala haysataa adiga yaysan ku saamaynin oo yaysan ku beddelin. waxaa wax fududa mararka qaar iyo xilliyada adag ee ku soo mara inaad isku malayso qofka keliya ee ay dhibaatadoo dhan haysato oo aanba wax nasasho iyo raaxa haysan. sidaas ayaad isku malaysaa mararka qaar, laakiin dareenkaas aad dareemayso waa been. haddii aad muddo dheer halganto, waxaad ogaan doontaa inaad heli doonto qof gacanta kuu soo taaga oo ku kaalmaynaya, xaaladdaadana inay noqoto mid qurux badan sabab u noqda. dhammaanteen waxaan u baahannahay iskaalmayn. waxaan u baahannahay wax nagu kaalmeeya oo nagu baraarujiya in nolosheennu ay leedahay deegaanno qurux badan oo dhexdeeda ah. waxaan u baahannahay qofna xasuusiya in xaaladda hadda lagu jiro aan lagu sii daa'imi doonin. ma og tahay walaal, qof waxaasi ku xasuusin kara ama waxyaabahaasi oo idil kugu dhiirigelin kara in uu ku nool yahay caalamkaada. ama haddaan si kale u dhaho, ma og tahay inuusan qofkaasi kaa fogayn. waqti la qaado kuwaasi sabab u noqonaya oo kaa yeelaya in aad dhoolla caddayso. kaba fogow oo daqiiqada isaga khasaarin kuwa kugu beeraya murugta, tiiraanyada, walwalka, walbahaarka, walaaca iyo wixii la mida. dhoolla cadday dhib kuma daa'imaye, dhex joog oo ha ka dheeraan kuwa dhoolla caddeeya. si kastood ugu dadaasho in aad erayadaada qurxiso oo aad hagaajiso, si toosna aad u dhahdo, waxaad mar weliba heli doontaa qof xumeeya fasirkeeda una leexiya meeshii aad doonaysay meelaan ahayn. yacnii wuxuu u fasirayaa ama u qaadanayaa qaabkii aad u dhahday mooyee qaab kale. haddaba dadka noocaa ah ha u aabbayeelin. dheh hadalka aad rabto inaad dhahdo, midkaasi oo aanu dhibkaaga imaanayn. yacnii ku qowl wixii khayra ama afka qabso. ma doonaysaa walaal inaad noqoto qof hal abuur leh? waxaa kugu waajiba inaad meesha ka saarto cabsida aad ka qabto inaad qalad ku dhacdo. ogow, haddii aad mar weliba ka baqdo inaad qalad ku dhacdo, hal abuurkaadii halkaa ayuu ku dhimanayaa. haddii midkood doono inuu noloshaada qayb ka noqdo, wuxuu dadaal aad u fara badan ku bixin doonaa si uu noloshaada qayb uga noqon lahaa.
haddaba adigu waxba ha isku daalin oo wakhti ha isaga lumin inaad qalbigaaga boos uga qabato dad aan doonayn inay dadaal badan ku bixiyaan sidii booskaas qalbigaaga ah ay u degi lahaayeen. haddii aad doonayso inaad ogaato inaad tahay qof hodan ah, tirakoob waxaad ku samaysaa waxyaabaha waaweyninka badan ee aad haysato, kuwaasi oo aan lagu qiimayn karin maal iyo xoolaba.